inaad raadsato hablo kale waxaa jooga hablo ma jeerteen waxaa jooga hablo waxaa jooga isaaq waxaa leeyahay dirislo xeerkaasi wax jira ma ahan waxaas wax ku wanaagsan ma ahan khamar suugaani raya bajaajna waxaa leeyahay haddii wax idiyaarsan inaa isku laabataan aakhir zamaan ayaa ku jirna nin rag sidoo nin rag kale ugu maseera waxaas waa qalad waxaa leeyahay raya bajaaj khamar suugaani waxa waalira waa adiga haddii uu waashto ama balwad ama wax kale uu ku waashto khamar suugaani ayaa raba halkan inaa fariin kaga diro sidoo kale raya bajaaj dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaa leeyahay anigoo ah badbaadiya fanka ummadda Soomaaliyeed ayaa la hadlay waxa ay sameynayaan ma ahan wax ku wanaagsan dhaqanka iyo diinta islaamka ee Soomaalida ay caan ku tahay waxa leeyahay khamar suugaani iyo soo kala rayaan bajaaj hore waxay u sameeyeen xaflad furiin taas oo qalad aheed oo khamarna uu ku qaldanaa rayaanna ay ku qaldaneed maalmahan waxa arkaya hadallo iyo dad la isku balaminaa oo isjiijiidayo oo ku saabsan khamar suugaani iyo raya bajaaj nin inaag wiligood ay isfuri jireen oo ay kala dhamaan jireen rayaan kaligeed kuma noola Soomaaliya gabdho badan oo iyada ka qurux badan waliba bikra ah ayaa la helaya marka waxa leeyahay khamar suugaaniyo qoftaas haddii aad kala dhamaateen oo ilaahay calafkiina intaas ku akeeyay inaad raadsato hablo kale waxaa jooga hablo ma jeerteen waxaa jooga hablo waxaa jooga isaaq waxaa jooga hablo dhul bahante waxaa jooga hablii Soomaali ugu qurxanay ayaa helaysa war walaalo in adeero naga daaba ku leeyahay waxyaabaha maala yacniga aad sameynayso waxa leeyahay khamar suugaani arintaas kor ugu bax anigoo badbaadiya fanka ummadda Soomaaliyeed ayaa ku soo diray fariintaas mid kale waxa la hadlayaa rayaan bajaaj walaalay hadda lagu furi naag waxa lahay wiligeed ala aroos jirin lana furi jiray ninka ragga ah waxa la dhabarka lagama toogto hadalladaada waxay u ageen hadalla jeesjeesa marka daawada waxay u ageen hadalla kicin ah oo aad ku kicinayso khamar suugaani isla markaana aad ugu gafayso waxa leeyahay waxaas wax la qaadan kara ma ahan dadka Soomaaliyeed ma yeelayaan adiga waa qaldan tahay jooji hadallada aad wado iyo soo kale gafka u geysanayso dadka Soomaaliyeed adigana waxa tahay gabar Soomaaliyeed ma ogolna adigana in lagu dulmiyo ma ogolna adigana ina wax dulmiso labadaba kaama yeeleno mid kale arinta saddexaad waxay tahay Dirisla Cabdi ayaan halkan fariin ugu reebaya Dirislo waxaad sameynaysaa waaxad gudub waa dulmi waa wax Allah subhanahu wa ta'ala uu raali ka eenin in saaxibka boost gareyso ataag gareyso aflagaadiis oo aad u gafto xeerka raganimadana kuma jiro waxa leeyahay Dirislo xeerkaasi wax jira ma ahan waxaas wax ku wanaagsan ma ahan arimaha noocaas oo kala Dirisla Cabdi maadaama aata nin rag ah oo isla markaana wax walba faansan meediyaana ku jiro in aad nin inaag isqaba dhaxdooda aad gasho haday isfuraay haday isqaba bari ay isku noqon karaan maxaa ku hadle waa dulmi waa qalad khamar suugaani waxa ku haysata Dirisle waa qalad waxaasina waa ina joojisa boostiyada aad soo dhigaysid waa ina joojisa xadgudubta aad ku sameynaysid waa ina joojisa ugu dambeyn dadka Soomaaliyeed ee isticmaala social media ee nolol ka dhigtay wax walba keenayo oo xitaa waxa arkaysa naaga qaaban oo media dhex taagan nin naag oo isku xadgudba ama iscuna media taagan wixii oo dhan social media inay noqoto nolol war media nolol ma ahan war Soomaali isku dirka waa laga rooyaa dulmiga waa laga rooyaa xadgudubka waa laga rooyaa walaalkaaga hadii uu qaldan yahay gacanta qabanaysa hadaa laga qaldan yahay gacanta qabanaysa waxa leeyahay dadka Soomaali waxa lagu ogaa in ay nabad iyo wanaaga ay ka taliyaan ee ma lagu ogeyn nin inaag isfura inay u kala garqaadaan inay nin inaag kala furaan inay nin inaag isku diraan dadka Soomaali ma lagu ogeyn arintaas waa khalad maalmaha media ku soo badanaysa waxa leeyahay dadka arimaha sameeynayo oo fangareynayo lacaga ku bixinayo TikTok keenayo YouTube keenayo views ku raadinayo lamaana isjecel isku diraayo guryaha islaamad burburinayo waxaas waa laga roon yahay ma ahan wax wanaagsan qof walbo arinkaas ku jirana ilaahay dambi dhaaf ha weydiisto ilaahay cafis ha weydiisto ilaahay gacmaha u taagto guri adoo dumiso waxay la mid tahay adigoo masaajid dumiyay adiga maanta ma jeclaaleen in xaaskaada laga furo ama lagu diro ama lagu dulmiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala raali kama xitaa naagtaas haday qurxanta adiga naaye kala helaysa oo qurux badan waxa arkay ninka maseeray subhanallah
آخر زمان ما يا كجرنا نرك سدو نرك الأقوم السيرة وحاسوا قلد walaalkaaga haddii wanaag uu sameeyo ku taageer haddii uu qalad sameeyna ka celi xaalaya reeya bajaaj khamar suugaani waxa waalera waa adiga haddii uu waashto ama balwad ama wax kale uu ku waashtana waxa ogaanay wiilkaada aabiis inuu waashtay garawuna kaaga baahan yahay waxaana loo baahay maadaama uwad uu idin dhaxyaalo in nabad laga shaqeeyo shalay waxa sheegtay inaa nabad ku kala tagteen oo xataa xaflad aad dhiganaysay war maanta maxaa isku haysatiin idin leeyahay war Soomaaliya aabi damiirkiina ma ka fikiraysin dhul in la dhiso ma ka fikiraysin wada in la dhiso ma ka fikiraysin maskiin in la garab istaan ma ka fikiraysin in isbitaalo la dhiso laakiin maanta waxa ka fikiraysaan guri muslimeed sida aad ku burburin leedahay waxa leeyahay dhamaantiin aragkaas waa ku qaldatiin marka anigu waxa leeyahay aniga ma jecli guri Soomaaliyeed in la burburiyo ama uu burburo khamar suugaani reeya bajaajna waxa leeyahay hadii wax idiyaarsan ina isku laabataan hadii kalena wanaag iyo nabad ku kala baxdaan oo banaankaas ay kala martaan muuqaaladan iyo waxyaabaha maala yacni oo akhlaaq xumada iska soo qarxinayso ama la soo bandhigayaan ina joojisa